بسم الله الرحمن الرحيم لما دhalin Soomaaliyeed ku soo dhawaada macadka Soma waxaan halkan idinka sii doonaa introduction ku saabsan kooraska cusub aan bilaabi doono ee ah CCMB gaar ahaan examka Encore numberka examkana 350 401 macadka koorasku ka bixi doono waa macadka Soma waa macad ka haysta aqoonsi shirkadda Cisco sidoo kale kooraska waxa bixi doona anigu ah Cabdullah Maxamuud Salaad waxaan ahay Cisco certified instructor waa ilaa mahadi inaan dhalinta Soomaaliyeed aan u soo bandhigno kooraska CCMB iyo koorsooyinka sida CCNA waxay inagu qaadatay in muddo aynaan ardayda Soomaaliyeed u diyaarino lab real ah ama qalab real ah sidii ardayda Soomaaliyeed ee qaab maqal iyo muuqaal ah si toos ah ay u arkaan qalabka networking-ka kala duwan sida routerska iyo switcheska iyo firewallska iyo gaar ahaan qalabka networking-ka laga marmaanka u ah koorsooyinka sida CCNA iyo CCMB إن شاء الله تعالى وحنا كنت لجرنا استيب كلابات إنه دلك كأنه لاب دمسرن سيد أرضية الصومالية سيدو كلا إيجانس وجهلان إنه يقصن ميان هاندس أون لابس إن أرضية الصومالية سيد توس أيك وبراكتس جريان قلب ك ريال كأي نتوركينج لكن هذا وحنا أرضية الصومالية وهنا إنن أوتوف إنن وديارنا قاب أونلاين كورسوين كCCNA CCMB ده إنه استعمالنا قلب رياله waxaan marka aan rabaa inaan videogan aan ku cadeeno objectiveska aan ku baran doono koorskan iyo sidoo kale ardayga rabo inuu ku soo biiro koorskan shuruudaha looga baahan yahay iyo qaabka la isku diiwaan gelinayo kooraskani waxaan sheegnay inuu yahay numberkiisa 350 401 kooraskani waxa lagu magacaabaa Encore waa exam kamida examiska oo ardayga laga rabo inuu ku baaso si uu u helo certification-ka loo yaqaan CCMP Enterprise sida u hesho CCMP Enterprise waxa laga doonayaa inaad ku baaso laba exam kamid examkaas waxa laga maarmaan ah inuu ahaado kooraska hadda aan qaadanayno ama training-kii hadda aan introduction-ka aan ka sameynayno waa examka Encore-ka 350 401 kooraska kale ama examka kale oo ah sida u hesho CCMP Enterprise waa option waxaadna ka dooranaysaa dhowr exam oo kala duwan marka kooraskani wuxuu laf dhabar u yahay si aad dareemisid sida u hesho certification-ka CCMP Enterprise inaga marka reference aan adeegsan doono waa reference official certificate ee Cisco ay leedahay hadda horteena ka muuqda ardayda kooraskan ku soo biiran waxaan sii doonaa copy buugana sidoo kale objectiveska hadaan yara dul marno aan ku baran doono kooraska waxyaabaha kooraskan aan kaga hadli doono marka hore waxaa kamid ah dhanka design-ka sida loo design gareeyo LAN iyo WAN-ka iyo sidoo kale waxaan baran doonaa teknolojiyada sida SD-WAN ama software defined WAN technologies iyo sidoo kale waxaan baran doonaa SD access solutions waa trending hadda socda ama technologieska hadda caalamka aadka u socda ay kamid yihiin SD access iyo SD-WAN kooraskani waan ku baran doonaa sidoo kale waxaan kaga hadli doonaa qaybta hore ee kooraska quality of service sida aan u taxsiilino ama sida u hagaajino performance-ga network inuu adeegsanayno marka quality of service sidoo kale waxaan baran doonaa process switching software switching iyo safe technologies MAC address iyo TCAM iyo waxaan ka hadli doonaa sidoo kale iyo feed iyo routing information base iyo forwarding information base qaybta hore ee kooraska ama qaybta hore ee objectiveska examkan wuxuu noqon doonaa wuxuu focus ku saari doonaa sad dareemisid technologieska sida SD-WAN-ka SD access-ka iyo design-ka haddaan u nimaano marka qaybta labaad ay exam objectiveska waxaan ku baran doonaa virtualization technologies waxaan ka hadli doonaa virtualization technologies sida hypervisorska kala duwan noocyada kala duwan type 1 iyo type 2 iyo sidoo kale generic routing encapsulation iyo IPsec tunneling iyo VRF iyo sidoo kale waxaan ka hadli doonaa technologieska sida VXLAN iyo Lisp waa qaybta virtualization-ka aan ku baran doono kooraska Encore CCMB Encore exam hadda u nimaano marka qayb saddexaad exam objectiveska ka hadlayo infrastructure network halkan waxaan ku baran doonaa layer 2 technologies iyo layer 3 technologies markaan leenahay layer 2 technologies waxaan si deep aan kaga hadli doonaa protocolska sida spanning tree iyo ethernet-ka iyo trunking-ka iyo sidoo kale markii aan joogno layer 3 waxaan qaadan doonaa saddexda protocol ee ugu muhiimsan markii laga hadlayo routing-ka OSPF EIGRP iyo sidoo kale BGP waxa kale aan ka hadli doonaa qaybta isla infrastructure-ka wireless technologies waxaan baran doonaa WLC wireless LAN controller
waxaan u imaanayna marka qaybta IP services oo aan kaga hadli doono marka NAT iyo sidoo kale NTP iyo HSRB iyo VRRB iyo sidoo kale multicast protocolska sida BIM iyo IGMB ha ahaado version 2 iyo version 3 dhamaan waxaan kaga hadli doonaa marka waa qaybta saddexaad ee exam objectiveska ee infrastructure sidoo kale haddaan imaano network assurance waxaan ku baran doonaa IPSLA iyo qaabka loogu sameeyo monitoring networka inuu adeegsanayno tusaale ahaan SPAN iyo RSPAN iyo ESPAN waxaa kaloo aan qaadan doonaa configurationka marka la joogo network automationka gaar ahaan netconf iyo restconf sida loo adeegsado ayaan sidoo kale ku baran doonaa qaybtan haddaan imaan marka qaybta securityga oo examka ka ah 20% waxaan ku baran doonaa AAA technologies waxaa kaloo aan qaadan doonaa sidoo kale access control list iyo sidoo kale waxaan baran doonaa teknolojiyada securityga ee la xiriirta wirelesska sida EAD iyo web authentication iyo shared keys waxaan kaloo aan baran doonaa componentska network securityga markii aan laga hadlayo dhanka designka ama markii aan rabno inaan mitigation ku sameyno hackingka ama threatka soo waajihi karo network waxaan baran doonaa endpoint security waxaan baran doonaa sidoo kale next generation firewall iyo teknolojiyada TrustSec iyo MACsec sidoo kale haddaan imaano dhanka automationka ay qaybta ugu dambeysa exam objectiveska oo examka ka ah 15% sidoo kale waxaan halkan ku baran doonaa inuu adeegsanayno programming languageka Python sidii aan u sameyn karnaa network automation iyo sidoo kale waxaan baran doonaa data format types sida YAML iyo YAML iyo DNA center waa controllerka loo yaqaano DNA centerna waxaan ka qaadan doonaa concept ku saabsan waxaan kaloo baran doonaa REST API iyo guud ahaan application programmable interface API concept ku saabsan waan baran doonaa waxaan kaloo baran doonaa toolska sida Chef iyo Puppet iyo Ansible iyo Saltstack farqiga u dhaxeeyo iyo waxa ay ku kala duwan yihiin waan ku baran doonaa gudaha course-kan sida marka adiga aad hadda dareemaysid waa course u baahan inaan siino focus waa course u baahan inaan siino waqti iyo sidoo kale inaan gelino dadaal badan course-kan insha Allah taala ardayga rabo inuu kusoo biiro waxa laga maarmaan ah in uu soo qaatay CCNA waa laga maarmaan haddii aadan course CCNA aadan soo qaadan oo aad soo qaadatay kaliya introduction networking aad soo qaadatay oo aad isleedahay marka course-ka CCNB si toos u bilaabi kartaa taa waxaan leenahay marka waa qalad waa in ardayga soo qaatay CCNA conceptiga CCNA ama exam objectiveska ee CCNA oo dhan waa inaad meel soo saartay sida marka course-kan ula qabsato oo course-kani aad kaga miro keento course-kan insha Allah taala waxaan badi doonaa practice-ka inuu adeegsanayno marka real devices iyo sidoo kale inuu adeegsanayno GNS3 ama sidoo kale platforms kale ama softwares kale loogu talagalay inaynu ku sameeyno emulation network devices sida marka isku diiwaan geliso course-kan numberka ku xusan description-ka ama numberka hadda halkan kaaga muuqdo ama page-kan ku leenahay Facebook-ka nagala soo xiriir faahfaahin ku saabsan registration-ka course-ka iyo xilliga aan bilaabi doono iyo sidoo kale fee-ga course-ka dhammaan information ku saabsan registration-ka si u hesho nalaga soo xiriir WhatsApp-ka ama page-kan ku leenahay Facebook-ka